وانا بيها ايه hilibkana hilibna waanuna muddooyinkii u dambeeyay deegaanada hoos yimaada magaalada laascaanood ee caasimada u ah dowlad goboleedka maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa waxaa ku soo badanayay falal cabsi iyo walaac ku abuuray bulshada kadib markii kooxo juudaanley ah oo dadka deegaanku u yaqaanaan dad qalato lagu eedeeyay inay xoolaha dhiigooda jaqaan ay hadal hayn badani ka dhalatay kadib markii kiisas badan laga diiwaangeliyay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku xiran degmada Kalabayd iyo deegaanada kale arintaasi oo halis weyn ku noqotay nolosha dadka iyo tan dhaqashada xoolaha ayaa waxaa howlgal maalinimadii shalay ahayd lagu soo qabtay nin dhigmiirato ah kaas oo dad iyo xoolaba aanay ka nabad helin deegaanada dhibaatooyinka ugu badan sida joogtada ah uga soo yeerayeen waxaa ka mid ahaa tuulooyinka ku dhow caasimada gobolka Sool ee maamulka waqooyi bari Soomaaliya gaar ahaan degmooyinka Kalabayd Yeyle iyo Tuulo Samakaab halkaas oo dadka reer miyiga ahi ku nool yihiin nolol ku tiirsan xoolaha oo ah laf dhabarta dhaqaalaha bulshada ayaa la sheegay in si aan caadi ahayn faro kulul loogu hayay xoolaha oo dhiiga laga shaqeeyo xalay fiidnimadii ayay ciidamada ammaanka ee degmada Kalabayd ku guuleysteen qabashada nin la sheegay inuu ka soo jeedo qoomiyadda Oromada kaas oo lagu eedeeyay inuu ku lug leeyahay falal dhiig-jaqis ah oo ka dhacay deegaanka ninkan ayaa sida la sheegay muddo ku dhuumaalaysanayay tuulooyinka ku dhow degmada balse waxaa suurtageliyay in la qabto iskaashi xoogan oo u dhaxeeyay shacabka degmada Kalabayd iyo laamaha ammaanka oo si joogteyn ah u sameeya falal lagu sugayo amniga intii uu ku xidhnaa saldhigga degmada Kalabayd ninkan lagu eedeeyay dhiig miiratada ama dhiig jaqista xoolaha ayaanu u kurgalnay kaas oo kolkii aanu la kulanay codsaday in loo keeno dhiig iyo hilib ayrin arrintaasi waxay sii xoojisay shakiga bulshada isla markaasina waxay dhalisay su'aalo ku saabsan sababaha dhab ahaantii ku kalifaya falalkan lagu eedeeyay ninkan taliyaha saldhigga degmada Kalabayd Kabtan Yaasiin Yuusuf Maxamed oo aan wax ka weydiinay xaaladda eedeysanaha ayaa sharaxaad ka bixiyay dhab ahaanshiyaha sheekada iyo qisadan argagaxa iyo walaaca ku abuurtay bulshada ee dhiig jaqista eedeysanahan Khaatime TV waa soo dhaweynaa waxaan ka warbixin doonaa ninka kan alku xiran deegaanada isku arkisiin hilibka cunayay ninkan waxaa laga soo qabtay meel gobdheer la yiraahdo shalay baa la soo qabtay wuxuu siiyay gabadh yar la joogta gabadha diiq baa laga reebay markii dambana islaan budaba inuu qabto saantan diiq ka baxsatay kabacdi markaa warkiisa helay iyadoo baa ku saarnay ninkaa waa soo qabanay ninkaasi ilaa intii aan soo qabanay ilaa iyo haddii wuxuu doonayaa dhiigu cabo iyo hilib ceelin saaka wasada hilib aan u keeno ceelin wuu laqay ma dhaweyn hilib kale ay keen gaabaan usoo iibiyay haddeer u keenay dee uu baktiya cunto kale cuni maayo dee waa qofka daalinkaa in dhaweyna agee waxaa ka jiray xoolo dareeray oo inta ciidka laga dooliyo dhiigga laga taqayo baktiya loo tegay duurkii deegaanka ba ilaa wuxuu dhumay dhagax kurow gobdheero Kalabayd aageeda intaa dadku waxyaabo badan bay sheegaan oo dee aad jirin marka wax dhacaan waa jiraan waxyaabo badan hadda la soo sheegay leeyahay nin baa la qashay iyo waxaa ma garanaysaa laakiin ninkan waa taalin